Bismillah, Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena, waa mar kale iyo walaasheena Safiya Xubiyo soo laabatay oo muuqaal cusub oo nii wado. Ugu horeyn channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, haddaad hore noola joogtan walaal soo dhawow mar kale aan ku leenahay. Maanta waxaan dhammaystiranaa qisadii ahayd Xafsa iyo Cumeer qaybta part 1 markaas oo ayaa ogaan doontaa part 2geedana si kugu fududaata. Marka part 2 part 1 wayna soo fiirsataa. Okay, qisadayna marka waxay ahayd Xafsa oo Cumeer la baxsanaysa bay ahayd qisadayni. Xafsa oo Cumeer la baxsanaysa marka Cumeer wuxuu yiri Xafsa waa inaad ila baxsataa, aniga adiga waa wada baxsanaynaa, gurigeena ku geynaa caruus nolol iyo wax waliba u baahan tahay aniga kuu sameynaayo. Aniga mas'uuliyadaada sida ugu habboon oo qof u qaadi kara baan ugu soo baxay, higa cabsan. Tan kalena waa tii jeceshahay, waan ku jeclahay. Markaa sidaas buu jira. Iyadana waxay samaysay garan weydiilka ay jecleed way beetir way raacday wiilkii. Way wada baxsadeen wadankii ay ka soo baxeen, wadankii kale bay imaadeen. Aabaheedii wuxuu yiri gabadheedii aniga baariyada ahayd ma aniga nin igala baxsatay haa. Wuxuu yiri tan bis iga tahay aniga aabihii wax walba laga dhaadhiciyo wiilka cidiis qof walba wax ka dhaadhico ka dhaadhicin way anigu balan aan qaadso aniga iyada igama weynaan oo ninka soo lama baxsan haba ii keenin buu yiri. Oo gabadhan aniga ma wadalin ba umaleynaa buu yiri. Xitaa aan ku raada dhalitaanka oo dhalay buu ka shaqeeyay reer oo xanaaqay aabeed wuxuu nin xanaaq badan ayadan gabar samir badan oo maskiin ay ahayd. Marka ma isdheeni aabaha gabadha nin bay la baxsanaysaa misna jacayl dartiis bay kaaga tagaysaa. Gabadhii way samaysay wax ay sameynaysa garan weydi saas ayadoo ciiloonaysa ba maxaan ku raada ninkii loo geeyay gurigiisa. Markii ay dhacday ninka gurigiisa markii saas loo geeyay ayadoo ciishanays gurigeeda iska dhaqanays laakiin kuma faraxsaneen farxadda ninka jacaylka ay jecleed way ku faraxsan tahay laakiin aabaheedii oo maxaan ku raada sana in la guursado maysan rabin gabadhii. Wuxuu waqtiga socdaba guriga uu dhaqanaysay maalin waliba aabaheed dad bay u direysay oo aabaheyga la hadla bay diray ka aabaheed si qof kasta ay ugu direysay maalin maalmaha ka mid ah marka gabadhii Ilaahay waxba siiyay uur bay qaaday. Uurka markay qaaday kadib ugu dambeyntii dhalinkeeda baa la gaaray way dhashay. Markay umusho kadib adii xoogaa way ku dhibtootay uurkii qaliin bay mutaysatay waxa la yiri waa lagu qalayaa gabadhan waa la qalaa familgeeda ha loo waco. Aabaheedii buu imaaday uu saxiixay kadib waa la qalay qaliinkii markii lagu guuleystay kadib wiil bay umushay. Wiilkii waxaa loo bixiyay Maxamed. Aabaheed Maxamed baa la yiraahday markaa saas darteed Maxamed loo bixiyay. Aabihii aad buu ugu farxay dadkii wanaagooda say u soo dhaweynayaan say ugu fiican yihiin isu u maleynayay isma wala habo aad buu ugu farxay. Wuxuu yiri waa markii ugu horeysay gabadheeda aan u maleeyay inay qalad gashay oo haddana gabadheedu wax wanaagsan ay samaysay. Gabadheeda igraal noqo intaan ku xiriyanayay igraal noqo buu yiri aabihii gabadhii buu raali galiyay asagoo qeyraanaya. Gabadhu waxay tiri aabba may waxba sameyn isfahan daro labadeena na dhexyaasha ahayd taasna intaas la ka soo qaad maadaama ay aqbashay guurkayga waad ku mahadsantahay aabbo. Ciidan waa cid fiican aniga baan ogaa inuusan wiilkani cidlaynayn marka aabihii marka maadaama gabadha yar ay diiday wiilka aabaha gabadha weyn maadaama ay diiday aabaha wiilka gabadha yar buu ku dar wiilkii balanta ahayd. Marka nolosheeda iska xumayd taas iyadana bay tiri inaan wax ka sheego marwo bay tiri laakiin aniga nolosheeda maasha Allah oo ku faraxsanahay. Maxaan ku raadaa waa aad baan u farxay aabahayga ducadiisa. Maxaan ku raadaa aniga hooyo aan noqday jacaylka familka ninkeyga saacidiisii jeclaaday baan isku helay anigoo dhan waxay dhahday gabadhii gabar aad u faraxsan baan noqday oo maxaan ku raadaa dhanka farxadda adiga adduunka farxad kalena ay dhimanayd ma u maleynaynin maalinka aabahayga oo ereyadaas oo igu dhahay way tiri maasha Allah
aniga hadda aad baan u faraxsanahay bay tiri qisada gabadhan halkaas ay ku eg tahay. Haddaad wax ka faa'iideen like noo saara, dhiirigelin bay noo tahay. Fiidiyowyadana waa soo badanayna ayaantan waa iska mashquulsaneen hadda laakiin si joogteen baan u soo dhigayaa. Marka waxaan idin leeyahay sidaas iyo ammaano Allah, nabadgeliyo, bye bye.